jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Uganda ayaa muslimiinta ku nool dalkaasi waxa ay kala qayb galeen munaasabada Ciidul Adha sida ku waramayo wariyaheena Yuusuf Maxamed Kashmir. maalinta koowaad ee munaasabada Ciidul Adha ayaa maanta si weyn loo dabaaldegay magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda. kumanaan ka mid ah muslimiinta dalkan iyo Soomaalida ku nool Kampala ayaa salaada Ciidul Adha ku dukaday masaajidka weyn ee Qadaafi. kadib dugashada salaada Ciidul Adha ayaa waxa la arkayay muslimiinta oo iskugu hambalyeynayay munaasabada ciida, iyadoo wajiyada la dhasan karay farxadda munaasabada ciida. haddaba qaar ka mid ah ardayda wax ka barta jaamacadaha dalka Uganda iyo Soomaalida kale ee ku dhaqan halkan ayaa telefishinka qaranka Soomaaliyeed salaan u marsiiyay ehladooda iyo qaraabadooda. عيد مبارك دمان أمد المسلمين قاسهان أمد الصوماليات قاسهان غير يوغندا وغنزل كيني جبريل أفيره أو إذن الله عيد مبارك إلهي وحن كبر دلك إنه نبت جوكتا سبشي برواقو إنه كدليو إلهي وحن كبر ندد مذا ملول بيشوغان إلهي إنه قديقو وحن إلهي كبر عيدان عيد ذا كلنا أن كجار نبت joogta runtii waxaan farayaa qof walba Soomaaliyeed in waxa lagu dadaalo Soomaalinimada, midnimada, walaaltinimada, muslimnimada. maanta waxaan joognaa maalintii ciid ahayd runtii meel walba ay joogtaan farxad ku ciida ka farxiya carruurta, ka farxiya dumarka, hooyooyinka, maatada markaas anagoo dhan baa hadii laga farxiyo dadkeenu horumar gaar magacayga waa Cabdiraxiin waxa ku suganahay dalka Uganda gaar ahaan Kampala caasimadiisa ay tahay hadii waxaan ku suganahay qaas ahtaan masaajidka weyn ee Qadaafi waxa la ummad muslimiin meel joogan ciid mubaarak kul caam wa antum bikhair waxa leeyahay waxaan halkan salaamayaa familkayga qaasatan hooyadeeda qaliyaan jecelahay maam Asma waxaan kala salaamayaa aabahey qaaliga Cabdirashiid ayaan salaamayaa iyo walaalay qaali muslimiinta meel joogan waxaan kala salaamayaa ummad Soomaaliyeed ku hadasha af Soomaaliga waxaan leeyahay ciid mubaarak kul caam wa antum bikhair anigoo magacayga uu yahay Maxamed Amiin Barre ahna gudoomiyaha ardada Soomaaliyeed ee dalka Uganda waxaan halkan farxadda ciida iyo tahniyada iyo aan kala qaybsanayaa dhammaan ummadda islaamka meel walba iga fiirsanayaan ama ay joogaan qaasatan waxaan u tahniyeynayaa oo farxadda la qaybsanayaa aan leeyahay hambalyo iyo ciid mubaarak ciid wanaagsan ciidul adha kullu caam wa antum bikhair ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وحنا متقنا وتهنينا دمان أرضنا الصومالية دلك يوغندا iyo shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Uganda dhamaan waxaan kaloo leeyahay guuleysta waxaan leeyahay Soomaalida meel walba ay joogaan nabad ku ciida insha Allah taala waxaan kaloo leeyahay nabad ku ciida kullu caam wa antum bikhair taqabbal Allah minna wa minkum salih al a'mal wa Maxamed Cabdullaahi Qarash waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed hambalyo ciida waxa weeye Ciidul Adha waxaan u hambalyeenayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leeyahay insha Allah sanadka soo socda bashbash iyo barwaaqo ayaan rajeynayaa taqabbal Allah minna wa minkum salihul a'mal waxaan salaamayaa si qaas ah u salaamayaa bahda TV-ga SNTV oo dabcan maanta inoo suurtagelisay inaan halkaan aan ka gudbino barnaamijka hambalyada iyo salaamaha waana mahadsantihiin bismillaah wasalaatu wasalaam waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan كل سنة وأنتم بداية إن شاء الله وحاجة عيد ونكسن عيد عن عيد ذا كله إن شاء الله بش يبروا إلى إنه قرسيو سقى سواء السلام يا بيدي رحمة أحمد فرح أبي إسماعيل ياسين وعليه لما نمت الصومال مركز أجوكتهم حاجة عيد ونكسن بسم الله magacaygu waa Aamin Axmed Kidiye waxaan dhamaan ummadda muslimiinta ee Soomaaliyeed ugu hambalyeeynaa maalinkan qiimaha iyo qaayaha leh ciida ah waxaan leeyahay ummadda muslimiinta dhamaan ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhair waxaan si qaas ah u salaamayaa dhamaan familkayga qaasatan hooyaday macaan bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdullaahi Cabdiraxmaan Sheekh dhamaan ummadda muslimiinta meel kasta joogaan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair taqabbal Allahu minna wa minkum salihal a'mal dhamaan family-gayga iyo asxaabteeda waxaan leeyahay ciid mubaarak meel kasta joogtaan sanadkan iyo sanado badan oo soo socda dhamaan bashbash iyo barwaaqo Allah inuu gaarsiiyo halka waxaan salaan khaas uga dirayaa
faamiligayga oo ugu horeyso hooyo ruqiyo iyo aaba cabdiraxmaan dhammaantiin asxaabtana waa idinkan waa salaamintiin ugu horeyn dhammaan waxaan ka salaamayaa halkan bulshooyinka Soomaaliyeed iyo ummadda Islaamka meel walba ay daafaha caalamka kaga nool yihiin waxaan leeyahay maanta waa maalin farxadeed ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair qof walba wax weey islaam wax weey waxaan rajeynayaa inuu khayr iyo caafimaad iyo barwaaqo iyo bashbash ku ciido insha Allah taala marka waxaan rabaa in halkan ka yara salaamo waalidiintay ugu horeyn waxaan la ka salaamayaa aabahay maxamed shacali aab ciid mubaarak hooyaday baan la ku xishinayaa ruqiya ismaaciil yuusuf ciid mubaarak insha Allah taala iyo dhamaan walaalahay waxaan u dirayaa farxadii ciida والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله أولا السلام عليكم بعد السلام مقعي واسفي شيخ جامع وحان همبليو أتريا دمان بهوين الصوماليات وحي مسلم بعد مدكلا لمد وحان سلام أدريا فاملكي أو كنو المقدشو وإذا أبيه دمان انتي مقالكي دتقانو بسم الله أنا ويا مقعي دكتور محمد عبد الله باسويني وحان كان وحان بلينيا دمان ummadda muslimiinta ah meel walba adduunyada ka joogan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer Uganda qaasatan shacabka Kampala waxaan leeyahay ciid wanaagsan oo kullu caam antum bil khayr waxaan halkan ka salaamayaa waalidiintay sida hooyaday macaan iyo aabahay qaali ah waxaan leeyahay jiro jooga cimrigiina ha joogo ciid wanaagsan baan leeyahay ciid wanaagsan ciidul caam wa antum bil khayr kullu caam wa antum bil khayr waxaan salaamayaa dhammaan Soomaali maxamed umad islaamka meel kasta ay joogaan waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday Leela Sheekh Yuusuf aabahay Cabdiraxmaan Jaamac dhammaan walaalahay reer Cabdiraxmaan Jaamac kulli waa salaamayaa halkan magacayga waa Saacid Xaashi Axmed waxaan maanta halkan uga hambalyeeynaya dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan Soomaalida waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bi khayr waxaan intaas ku darahayaa xujayadina ilaaha ka aqbal xajkooda annagana Allah noogu dambi dhaafo soonka shala aan soonay sanad tagay iyo sanad soo socdo waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bi khayr السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحا سلامة يا دماء مسلمين ميل كستو جوغان وحا ليا كل عام وانتم بخير وحا هالكان كسلامة سي قاسة وإذا معان إي ولا ليا مسلمين ميل كستو جوغان كمبلا أم صومالي ميل كستو جوغان Soomaaliyeed waxaan leeyahay salaan aad u wanaagsan oo sadrigayga iyo baarkiisa sanbabkayga ka keenay oo la dul saaray sabiib oo malabkii ka siqaayo sidan aan u wadaayo kulligiin sadka hooya waxaan leeyahay hambalyo ciid mubaarak ummadda Soomaaliyeedna waxaan u rajaynayaa nabad iyo barwaaqo bashbash iyo ciideeda barwaaqo iyo khayr Yusuf Maxamed Macali Iskashmir raadiyaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed caasimadda Kampala Uganda